munaasabadan oo habeenkii xalay ka dhacday hotel Damal ee magaalada Hargeysa ayaa lagaga hadlayay tartanka hal abuurka cadaaladda. Munaasabadan oo ahayd mid ku cusub Soomaaliland iyo guud ahaan geyga Soomaalidu degto oo ahayd mid lagaga hadlayay sidii loo horumarin lahaa cadaaladda. Waxaana halkaasi lagu soo bandhigay barnaamijyo lagaga hadlayay cadaaladda wadamada horumaray. Waxaana munaasabada ka soo qayb galay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, bahda garsoorka iyo waliba ururada xuquuqul insaanka ee Soomaaliland iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay barnaamijka Hanad oo kamid ah qabanqaabiyaasha barnaamijka. waxaana hadaladiisi kamid ah faa'iido weyn u leeyahay tartanka. horta waxa la yiraahdaa tartanka hal abuurka cadaaladda haddana Soomaaliya wada dhigno dhinaca kale Innovating Justice Challenge. marka runtii wuxuu daaran yahay sidii loo helaa fikirro ama hal abuur wax laga qaban karo caqabadaha cadaaladda ugu adag in soo wajaha. runtii marka tusaalayaal baa inoo soo bandhigay wadamada kale ee hore lagu soo hirgeliyay programka kasoo hirgalay. marka waxa weeyaan fikirka ka dambeeyay in dadku ay keenaan hal abuur iyagu solutionkii ama hal abuurkii caqabadaha ka gudbi lahaayeen line. marka runtii waa markii ugu Soomaaliland laga daafuro. waxaan rajaynaynaa in hore kulay loo sii wadi doono mashruucani dhowr sano dambe uu sii socon doono. marka waxaan wuxuu runtii dadkan la isugu yeedho bulshada maartay bahda cadaaladda ku xidhan oo maxaa la yiraahdaa laga wargeliyo programka iyagana fikirkooda runtii la cabiro oo la dhageysto. What the Ministry of Justice does or does not, nor what it is constitutional mandate. Let me start with a verse from the Quran. This Friday, Surah number 4, Surah An-Nisa. In verse 135, God says this: "You who believe, uphold justice and be a witness to God, even if it is against your selfish, your parents, or your close relatives." gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaas aragtidooda ku aadan siday u arkaan. qof ka badan inaan cadaalad helin ama dhibaatooyin cadaalad haystaan oo xal u helin oo noqonaysa 3 meelood oo laba dadka tirada adduunka ku nool. marka Soomaaliland taa loo eegana noqonaysa dad fara badan aan suurtagal u ahayn in cadaalad helaan ama gaaraan. marka in la fudaydiyo oo la yimaado hal abuur casri ah oo cadaalad lagu gaarayo oo dadka ganacsatada iyo dadka xirfadayaqaanka iyo dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur casri ah oo ay ku abuurayaan hanaan wanaagsan oo mid cadaalad ku soo gaarayso cadaaladna ku tayoobaysa waa shaqo wanaagsan oo muhiim ah. anu waxaan ka socday wasaaradda xiriirka arrimaha dastuurka. run ahaantii marka cadaalad laga hadlayana cadaalad waxay u baahan tahay sharci iyo xeerar. Soomaaliland runtii waxaan oran karnaa meel fiican bay joogtaa marka la eego Afrika iyo adduunkaba. muhiimaddu waxa weeyaan in xeerarka jira oo lagu dhaqmo kuwa ka dhimanna la keeno oo la ixtiraaqo. horumarinta cadaaladdu waa qayb ka mid ah horumarinta bulshada oo dhan. cadaaladuna iyada laf dhabar u ah amniga iyo horumarka. marka guud ahaan markii la eego waxa uu ka hadlayay sidii loo horumarin lahaa cadaaladda dadkuna ay si siman u heli lahaayeen cadaalad siman oo wada ilaalinaysa maxaa la dhamaantood ama sidoo imika yahay isma laha waayo waxaan faa'iidnay wax badan. waxaan ogaanay galdaloolada dawladdeena oo sharciga ay halkii sharcigeenu ka liito waxyaabaha baahan inaan improve gareynaan kor u qaadno. waana muhiim waayo waxaa jira dad badan oo sharciga helin haddii xitaa sharciga asaas u helaan inay galaan oo access u helaan ma helaan cadaaladii doonayeen ama cadaaladii satisfy gareyn lahayd. even haddii aanu dambiile ahayn cadaaladda satisfy garayso labada dhinacba satisfy garayso loo baahan yahay. haddii sharci la qaato haddii penal court la qaato labadii qofba raali iyagoon ka ahayn ay meesha ka soo baxaan. runtii barnaamijkan loogu talagalay kor loogu qaado cadaaladdu wuxuu wax weyn ka tarayaa in maaragtay adeega tusaale ahaan ay qabtaan bahda cadaaladdu hadday looyarada tahay hadday xeer ilaalinta tahay hadday garsooraha tahay ay dadka u gudbiyaan in la improve gareeyo la eego dib loo qiimeeyo la wanaajiyo maaragtay kolba marxaladdu marayo kor loogu qaado si maaragtay dadka loo siiyo adeeg cadaaladeed oo hufan oo maaragtay baahidoodii ka turjumaya. runtii waxa weeyaan barnaamij aad u wanaagsan weeyaan barnaamijka halka waxa ka socda cadaaladuna waxa weeyaan bini'aadamku wuxuu ku socdaba oo waxa weeyaan labada qof hadaan cadaalad waayin hadii cadaalad waayaanba waxa weeyaan meel Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax Bulsha TV magaalada Hargeysa.